fanaanka weyn ee Digriyow ayaa waraysi aan la yeelanay ayuu markii u horeysay waxa uu ku sheegay sababta loogu bixiyay Digriyow waxa uu sheegay asagoo uurka hooyadii ku jira hooyadii inuu gaaray jiiray dabadeedna uu halkaas feeraha iyo maskaxda dhaawac uu ka soo gaaray lagana sabray inuu maaragtay xaraqaado uu weynaado oo dad fara badan ay aaminsanaayeen inuu maaragtay saqiiri doono markii hooyadii ay umushayna waxay uu ku dhawaaqay ugu horeysay oo ku hadlo waxay ahayd waa soo hadalka u dhigay magaca Allah iyo waliba malaga weyn ee Jibriil waana mucjiso rabbaani ah qof markii uu dhashay erayada yiraahda oo ummadan Soomaaliyeed ka dhashay oo anigu maqlay ama aan ogahay haba yaraatee ma jirto sidoo kale waxa uu ka warramay sababta uu uga baxay kooxda waayaha cusub iyo sidoo kale heestii dufka baacidda uu sameeyay sidoo kale waxa uu fanaankan uga warramay dhibaatooyin iyo mucjisooyin kale oo soo maray asagoo 4 sano jira uurka hooyo arag ku jiro waa maamada hooyadii waxa maray baawur Allah Jibriil marka dhalay bacali waxa ahaa qof burbursan oo uur hooyo ku soo burburay arag 3 jir ah baaceelka ku dhaxdhacay ali li kale yiraahdo ilka caso ilka nimba ninka kale farta ku fiiqaari asaga sharaf iyo karaama leedahay walaalkii Cabdi Xaafid marka laftigiisana message ka gaaray Digriyow baa santa karbaashka kooxdii hore mucaaradka noqotay xaq jirka aad ku sameysay waayo cusub hadda si ay bisalay laba fikra kala haysanaa hadda kooxda waayo cusub ka mid yihiin